way hadda odayaal ku soo dhawaada bal markaan xagga iyo ciyaaraha warbixinadii ugu dambeeyay oo kaga heno iyadoo toddobaadkan ay bilaabanayaan ciyaarihii xiisaha badnaa ee koobka qaranka Afrika oo sanadkan uu marti gelinayo wadanka Ivory Coast waxaan imika shaashada ka aragtiin sida wadamada ka qayb qaadanaya koobkan ay iskugu soo aadeen gruubyada marka loo fiiriyo waxaana tartamay 54 wadan oo ku yaala qaranka Afrika waxa soo haray 24 wadan oo ka qayb galaya koobkan sanadkan xiisa gaar ah buu leeyahay xamaasad gaar ah buu wataa waxa ka qayb galaya wadamo aad isku soo adkeeyay waxa ka qayb galaya ciyaartoy ka soo jeeda qaranka Afrika oo magac iyo maamuus ku dhaxleh horyaalada kubadda cagta ee wadamada caalamka qaasatan qaarada tan Yurub sida Ingiriiska iyo waliba horyaalada kale ee kubadda cagta ee qaarada tan Yurub marka ciyaaryahanna fara badan oo caan ah oo magac iyo maamuus ku dhaxleh horyaalada kubadda cagta dunida oo ka soo jeeda wadamadaas kala gedisan ee qaarada Afrika ee ku tartamaya koobka kubadda cagta ee ragga qaarada Afrika ayaa ka qayb galaya wuxuu inoo bilaabmi doonaa sanadkan maalinimada sabtida 13 bisha January ee isla sanadkan 2024 waxa koobka magaciisa la yiraahdaa African Cup of Nations 2023 waxa laga yaabaa daawad in ay isweydiisid maxay 2023 koobka loogu magac daray iyadoo lagu jiro bilowgii sanadka 2024 faham guud seen oo daawadash uga siino intaan u gudbin gruubyada iyo sida ay kooxuhu u kala shaashadan aad ka arki kartiin aan in dul mari doono waxay ahayd ciyaarahan in la qabto bilihii June iyo July sanadkii tagay ee 2023 balse waa laga soo leexiyay oo waxa loo soo raray sanadkan bilowgiisa bilahan January iyo February in ciyaaruhu ay ka dhacaan wadanka Ivory Coast oo kamid ah wadamada dhaca ama ku yaala dhanka galbeed ee qaarada Afrika isla markaana marti gelinaya ciyaaraha sanadkan sababto ayaa ahayd in xilligaas waa bilihii tagay ee June iyo July sanadka 2023 ee tahay xilli roobaadka qaarada Afrika dhankeeda galbeed isla markaana laga cabsaday in roobkaas uu saameyn ballaaran ku yeesho ama ciyaarihi in badan oo kamid ah ay dhici weyso in la ciyaaro marka waxa loo soo raray bilowga bilahan January iyo February ee sanadkan 2024 ciyaarta ugu horeysa ee koobkan oo waliba xamaasad iyo xiiso gaar ah sanadkan koobka qaranka Afrika oo indhaha caalamka iyo waliba dunida iyo wadamada kale ee reer Yurub ay isha ku hayaan ayaa waxay bilaaban doontaa maalinimada sabtida ee 13 bisha January ee sanadkan 2024 ciyaarta ugu horeysa waxa bilaabi doona wadanka marti gelinaya ee Ivory Coast iyo wadanka Guinea Bissau ay ku wada jiraan groupka A haddaba 24 wadan ay ka qayb qaadanaya koobka haddana ninka dul maro daawadaashana in badan oo kamid ay arki karaan waxa groupka A ku wada jira wadamada Ivory Coast, Nigeria, Equatorial Guinea iyo Guinea Bissau halka group B ay ku wada jiraan wadamada Masar, Ghana, jasiiradda Cape Verde ee dhacda dhanka galbeed ee qaarada Afrika iyo wadanka Mozambique Group C waxa ku wada jira wadamada Senegal, Cameroon, Guinea iyo wadanka Gambia halka group D ay ku wada jiraan wadamada Algeria, Burkina Faso, Mauritania, Angola Group E waxa ku wada jira daawadaashana shaashada barnaamijka ka arki karaan wadamada Tunisia, Mali, South Africa iyo waliba wadanka Namibia halka groupka F ee ah groupka ugu dambeeyana ay ku wada jiraan wadamada Morocco, wadanka DRC Congo, wadanka Zambia iyo wadanka Tanzania waxa xusid mudan inuu ciyaarahan ay soo gabagaboobi doonaan laguna wada inay soo gabagaboobaan haddii ay soo dhamaadaanba oo ciyaarta kama dambaysta la ciyaari doona haddii ay beedmo sida qorshuhu yahay 11 bisha February isla sanadka 2024 waxaa sidoo kale xusid mudan in sanadkan ay ku tartamayaan wadamada loogu saadaalinta badan yahay ay kamid yihiin wadanka iminka haysta markii ugu dambeysay ku guuleystay Senegal wadanka Masar oo isagu haysta inta ugu badan koobabka ilaa 7 haysta wadanka marti gelinaya Ivory Coast oo wacdara ka dhigay ciyaarihii kubadda cagta koobka adduunka ee sanadkii 2022 lagu qabtay wadanka Qatar waxyaabaha kale ee xiisaha leh ee sanadkan laga filanayo ciyaarahan ka dhacaya wadanka Ivory Coast ay ka qayb galayaan 24 dal ee qaarada Afrika ayaa waxa kamid ah in warbaahintii caalamku ay tartan baahsan ugu jiraan oo ballaaran waliba sidii ay u qaadan lahaayeen ciyaarahaas oo u tabin lahaayeen oo dunida inteeda kale ay ula wadaagi lahaayeen maadaama qaarada Afrika kubadda cagta markay timaado sanadba sanadka ka dambeeya ay magac ku sii helayso inkastoo dhaqaale iyo muxuu ahaa musuqmaasuq baan uu ka jiro dhaqaale la'aan baahan ay ka jirto nidaam darro baan ay ka jirto wadamo fara badan oo caalamka iyo waliba xiriirada wadamada kale ka disan ee qaarada Afrika in badan oo kamid ah lagu eedeeyo musuqmaasuq haddana laakiin waa dad hiba leh ciyaartooyda qaarada Afrika ka yimaada markay yimaadaan waliba ay u ciyaarayaan kooxaha kubadda cagta ee ka dhisan wadamadan tan Yurub taasna waxay keentay in warbaahintii reer Yurub warbaahintii wadamada kale ee caalamku ay ku tartamaan siday u tabin lahaayeen oo u baahin lahaayeen ciyaarahaas una wadaagi lahaayeen dunida inteeda kale waxa kale oo xusid mudan wadanka Ivory Coast waa wadan ciyaartooy caan ah oo badan leh ama se ay u soo dheeleen ama oo u ciyaareen oo ay ka ciyaaraan
ama ay iska soo ciyaarayaan horyaalada ugu caansan qaaradda tan Yurub horyaalka Ingiriiska horyaalka Faransiiska ciyaaryahanna fara badan oo iyagu qaarkood aan dhihi karno waa dhalinyarada cuslaatay oo iminka u ciyaareen xulka ayaa koobkaas ku faanaya in wadankoodu martigelinayo imaan doona garoomada lagu qabanayo wadanka Ivory Coast martigelinaya kooxiyo wada gaaray iyo waliba annagoo filanayna in sanadkan sida filashada weyn aynu ka qabno haddii ay beedno inuu noqdo sanad qurux badan oo qaaradda Afrika ciyaaraheeda iyo isdhexgalkeeda iyo isku soo dhawaanteeda iyo waliba ciyaaro qurux badan inay soo bandhigaan guud ahaan wadamada ka qayb galaya gaar ahaan kuwa loo saadaalinayo inay ku guuleystaan koobka qaaradda Afrika sanadka 2023 wixii warar oo ku soo kordha marba marka ka dambaysa dib waxaa ku daawan doontiin barnaamijyadeena iyo wararkeena dambe haddii ay beedmo aad kala socotiin telefishinka Global Somali TV iyo bogogga aynu ku leenahay barta internetka waxaan ila socodsiinayay warbixintan anigoo ah Maxamed Saciid Saxaaf guud ahaan bahda barnaamijka isku duuban meel bad caalamka joogtaan waxaanu kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo